asalaamu calaykum asxaabey kusoo dhawaada falanqaynta aflaanta ee ra'yi web t v maanta waxaan idin wadaa filin xiise badan oo sirdoon dagaal ah oo la yidhaah no time to die 2021 ee u jilaya atooraha caanka ah ee la yidhaah James Bond. daawasho wacan filimku wuxuu ku bilaaban xusuus gabar yar oo la yidhaah Madeline Swan oo la joogto hooyadeed oo xanuunsan halka nin weji daboolan uu u yimid gurigooda. Madeline waxay aragtay nin daaqada qotoma wayna oroday si ay u dhumato. ninkii ayaa guriga soo galay misna isbaray hooyadeed in la yiraah Safin. wuxuu sheegay in uu raadin Master White maadaama uu laayay qoyskiisa. markii Madeline hooyadeed u jawaabi wayday Safin wuu awtoogtay. Madeline waxay ku dhumatay sariirta hoosteeda. markii uu qolka u soo galay raadinteeda ayay kala hormartay oo ku dhufatay xabad. markii ay banaanka u jiiday ayadoo moodi inuu dhintay balse ma dhimanin ee waa uu soo kacay. Madeline waxay ku dul carartay barafka iyadoo markii dambe dhulkii barafka hoos ula go'ay ayna qustay. Safin wuu is celin waayay inuu ku fiirsado gabadha yar ee qustay. barafkii ayuu xabadayay waa uuna ka soo saaray. xusuus kadib waxaynu aragnaa Madeline oo kula nool James Bond magaalada Marta kuna sugan jawi jacayl. inkasta oo ay labadooda faraxsan yihiin haddana Madeline waxay dareemi in uu weli Bond la murugsan yahay geeridii Vesper Land oo ay tilmaantay in ay ahayd qof aad ugu dhow. waraaq ay ku qoran tahay qoraalkii xusuusta Safin nin weji xiran oo Faransiis ah ayay qortay wayna gubtay. waxay sidoo kale ku dhiirigelisay James inuu asagana sidoo kale sameeyo si uu u hilmaamo xusuusta. subaxii dambe Bond wuxuu aaday xabaashii Vesper si uu ugu dambeeyay u cafiyo una maxsalamiyo. wuxuuna sitay waraaqay ku qoran tahay cafi. wuxuu arkay kaar casuumada oo meesha dul yaal. markii uu qaaday waxaa qarxay bam meesha ku xiran. isla markiina waa la soo weeraray. bundada ayuu ka booday. waxaa soo weeraray in la yiraah Promo Cyclops oo dilaa ah. Bond si uu dilaaga u dabagalo marka hore wuxuu beegsaday gurigiisa isagoo wato mooto. Madeline ayuu ku eedeeyay in ay shirqoshay. dilaagu ma awoodin inuu ogaado goobta uu joogo. cid ogeedna ma jirin. Bond oo ay la socota Madeline ayaa gaari xawaare ku wata. mar kale ayaa la soo weeraray isagoo u adeegsan bombooyin casri ah oo gaarigiisa ku rakiban ayuu ku baabi'iyay burcadii. in yar kadib Bond wuxuu gaarigiisa istaajiyay bartamaha magaalada iyadoo tuugadii oo dhan ku xaraarsameen gaarigiisana xabad ku shandheeyeen. inkastoo gaarigu lahaa difaaca gumaca qoriga Madeline aad bay u naxday. Bondina wuxuu garwaaqsaday in ay shirqoolka wax lug ah ku lahayn isagoo la soo baxay dhishiika casri ah oo gaariga ugu rakibnaa kuna baabi'iyay dhammaan tuugadii waxaan ka ahayn Promo. Bond waxa uu boostajada tareenka geeyay Madeline si ay u kala tagaan maadaama ay burburtay kalsoonidii dhexdooda taalay. Madeline way ilmaysay balse Bond wuxuu ku adkaystay in uu fasaxo. tareenkiina waa u dhaqaaqay markii ay indhaha la raacday Bond oo boostajada dhex taagan haddana miraqdiisa ayay wayday. 5 sano kadib koox burcad ah ayaa soo weeraray shaybaar la yiraah MI6. Saban oo ah madaxa burcadda ayaa soo wixisay nisyaanka shaybaarka. wuxuuna ku leeyahay in loo soo socdo ayuu u sheegayaa Abrochef waa saynisyaan sameeyo virus dilaa ah. tuugadii ayaa soo geli waxayna dhici viruskii dilaaga ahaa ee la yiraah Herigols kaasoo qofka jirkiisa lagu taabto uu dhimanayo. ugu dambeyntii waxay dilayaan saynisyaankii labaad iyagoo afduubtay Abrochef. gudaha MI6 markii ay damacdameen Penny inay kala hadasho wixii dhacay wuu ka aamusay. wuxuuna weydiiyey meesha uu jiro 007 oo ah James Bond. Bond howlgab ayuu noqday wuxuuna ku nool yahay Jamaica. waxa uu imaaday saaxiibkii Flex iyo gacan yarihiisa Ash. waxay aadeen bar. Flex ayaa u sheegay Bond shaybaarka la dhacay balse Bond wax ahmiyad ama siinin inuu ka qayb qaato howlgalkaas. wuxuuna u sheegay inuu ka shakisan yahay ninka Ash la yiraah ee la socda saaxiibkiisa Flex. markii uu Bond banaanka u baxay gaarigiisii ayaa u kici waayay waxaana uu istaagtay gabar Naomi la yiraah oo mooto wadata si ay lifti u siiso. markii ay guriga geysay waxay iska saartay burukadii timaha ee ugu jirtay waxayna u sheegtay in ay tahay sargaal 007. Abrochefna ay ku haysa dabagal sidaa darteed uu Bond ka leexdo wadadeeda. iyo Bill Tanner ayaa u sheegay Q
inuu soo celiyo faylashii laga xaday shaybaadhka. Bond ayaa wacay wuxuuna weydiiyey sida uu wax u wado howlgalka Abroshev. telefoonkii ayuu ku jaray, wuxuuna u sheegay Intel inuu doonayo inuu ogaado arrimaha Blofeld oo ku xiran xabsiga Belmarsh, isla markaana u muuqda qof isla hadlaya keligii. Bond iyo Felix ayaa u baxay Cuba si ay ula kulmaan howlwadeenka CIA-da u jooga magaalada oo la yidhaah Paloma. waxay galeen indhiindhan xafladda. Promo wuxuu adeegsan ishii macmalka ahayd si uu dusha ugala socdo, halka dhanka kale Abroshev lagu qasbay in uu sunta diyaariyo, isaguna wuxuu kala bedelay flashkii uu ku howlgalayay. Promo ayaa butoonka taabtay si uu sunta u fasaxo, balse wax aan la filin ayaa dhacay. suntii Bond loogu talagalay dadkii kale ayaa ku dhammaaday, halka Bond iyo Paloma uusan fayrasku waxyeelayn. markii ciidankii xabad isku bilaabeen, waxaa timid Nomi oo sare ula kacday Abroshev. markii uu ka baxsaday ayay gaari qaadatay oo derbiga ku dhufatay si uu hoos ugu soo dhaco. ugu dambayntii Bond ayaa gacanta ku dhiibay Abroshev. Paloma ayaa Bond ugu dhiibtay Flex sigaar, wuuna baxay isagoo diyaarad ku qaaday Abroshev. wuxuu Abroshev u keenay Flex iyo Ash oo doon dhexdeeda ku sugan. Bond ayaa bilaabay inuu waraysto Abroshev sababta uu isagu ugu waxyeeloobi waayey sunta. Ash oo cabsi dareemay ayaa iscelin waayey, wuxuuna u sheegay inuu Abro aamuso. Abro wuxuu sheegay in goor kasta la abaarsanayo Bond, balse wuxuu bedelay DNA-ga Bond, sidaasna uu uga badbaaday sunta. markii uu weydiiyey cidda gacan ku siisay inuu sameeyo sunta, Bond wuxuu horey ka gartay inuu Abroshev la shaqeeyo Ash ayaa bistoolad la soo baxay. intii ay isla laacdamayeenna waxay xabad ku dhacday Flex. Ashna wuxuu la baxsaday Abroshev isagoo bam ku xiray badii. Flex goobtii ayuu ku dhintay, halka Bond uu ka badbaaday, balse Bond uu aad uga xumaaday dhimashada saaxiibkii. Bond wuxuu ku laabtay MI6, wuxuuna ka codsaday in loo fasaxo xabsiga Belmarsh si uu ula kulmo maxbiiskii la yidhaah Blofeld. markii ay isfahmi waayeen, waa uu ka soo baxay isagoo caraysan. waxa uu u yeeray Nomi una sheegay in uu loo keeno xog walba oo ku saabsan Belmarsh. markii uu bannaanka u soo baxay, Monotony ayaa Bond u sheegtay in ay caawin. habeenka waxay aadeen guriga Q isagoo ku howlan casuumaadda lamaanihiisa, waxayna weydiiyeen in uu tuso feelashii la xaday ee uu soo celiyey. waxayna arkeen dhammaan magacyada la ugaarsan ee targetka ah oo Blofeld keliya ka maqan yahay, halka kumanaan kale dunida daafaheeda ku sugan ay ku jiraan dadka la abaarsanaya. Bond wuxuu Q weydiiyey inuu Belmarsh geeyo lana kulansiiyo Blofeld, halka Q uu sheegay in aan lala kulmi karin. intaa kadib waxaynu aragnaa Madeleine oo ah dhakhtarka dhimirka. markii ay xafiiska gashay, waxay aragtay Safan. horey kama aqoonsan, balse waxay garatay markii ay furtay sanduuqii uu siiyey oo uu ku jirtay maskarada. wayna naxday, wuxuuna u sheegay inuu doonayo inay u qabato howl. Bond waxa uu la kulmay dhammaan tiimkii MI6 isagoo dib ugu beeray misna wata darajada 007. waxay baareen faylasha aaskii inspector iyo qoyskiisa oo ka koobnaa 5 xubnood kuna dhammaaday fayraska Herigol. ayaa sheegay in fayrasku uusan hore khatar u ahaan jirin sida uu hadda yahay. wuxuu Bond u sheegay inuu Belmarsh tago lana kulmo Blofeld haddii uu ka heli karo wax xog ah. wuxuu tagay Belmarsh isagoo Madeleine kula kulmay xabsiga. salaan ayuu gacanta u taagay, balse waa ii ka diiday. markii Blofeld yimid, Madeleine cabsi ayaa gashay, waxayna bilowday dib u gurasho. Bond ayaa gacanta ku qabtay Madeleine, wayna ka farabaxsatay iskana baxday. Bond ayaa ku agharay maxbiiskii si uu ula hadlo, halka maxbiisku sheegay in uu shirqoolka ka dambeeyey. Bond ayaa xanaaqay misna cinjiyey Blofeld. nasiib darro, maxbiisku wuxuu ku dhintay taabashadii Bond maadaama gacmihiisu sumaysnaayeen. Bond wuxuu gartay in ay gacmihiisu fayraska Herigol ku sumaysan yihiin kadib markii uu taabtay Madeleine. Madeleine waxay aaday guri duurka ku yaala oo aynan cidi ogeyn. Bond ayaa ka daba tagay. markii uu guriga galay, wuxuu arkay gabar yar in ay leedahay oo la yidhaah Matilda. waxayna u sheegtay in uusan isagu dhalin. kadib markii ay saxisay gabadhii yarayd, Madeleine waxay Bond u sheegtay cidda uu yahay Safan, misna aabbaheed u laayay qoyska Safan, halka Safan keligii uu ka badbaaday. waxa kale oo ay u sheegtay in uu Safan meel jasiirad ah qorshe ka fuliyo. Bond waxa uu u diray Q si uu u ogaado
goobta jasiiradda. intaa kadib q wuxuu wargeliyey MI6 jasiiradda in ay ku taalla meel u dhexaysa jabaan iyo ruushiya. noli waxay GPS-ka ku raadin goobta uu jooga ash. bond wuxuu ka war helay in lagu soo foolan yahay, wuxuuna kaxeeyey Madeline iyo Matt. intii dhexda u kusoo jireen burcadda ayaa soo weerartay bond. waddada ayuu ka leexday wuxuuna galay howdka isagoo laayay burcaddii, waxaana dib ka soo weeraray ash. gaarigii ayuu la gediyey ashna bartii ayuu ku dhintay. markii bond uu dib u soo laabtay wuxuu ka war helay in Madeline iyo gabadheedii la afdubtay loolana dhaqaaqay ilaa iyo dhankii jasiiradda. bond wuxuu dib ugu soo laabtay MI6 waxayna beegsadeen isaga iyo nomi jasiiraddii burcadda. jasiiradda dhexdeeda waxaynu aragnaa saafan oo beeraya dhir sun ah, halka saynisyaanku uu ku howlan yahay samaynta fayraska. nomi iyo bond waxay weerareen jasiiraddii iyagoo gacanta ku dhigay saynisyaankii, waxayna miino ku xireen shaybaadhkii inkastoo aysan wadanin miino ku filan. nomi waxay barkad biyo virus ah ku riday abro. markii ay shaqaalihii arkeen sida jirka abro u galay fayraska way argagaxeen wayna carareen. Madeline waxa uu suurta gashay inay ka baxsato promo kadib markii ay shax kulul wejiga uga shubtay. bond wuxuu u yimid saafan oo haysta might. markii uu uga hanjabay inuu dili labadooda, bond jilbaha ayuu dhulka dhigtay wuuna baryootamay si uusan u waxyeeleen. bond oo aayar baskuuladiisii la soo baxay ayaa ku dhuftay waardiyihii saafan, halka saafan ka baxsaday. si kastaba ha ahaatee markii ay gabadhi yareed qaniintay saafan ee ay carartay wuu iska daayay, hooyadeed ayaana heshay. bond waxaa soo weeraray primo. bond oo adeegsan aaladda ugu xiran saacaddiisa ayaa ku qarxiyey macmalkii ugu jiray indhaha primo kuna dilay. bond waxa uu furay albaabka sare ee shaybaadhka si loogu qarxiyo gantaalada lala beegsanaya. markii uu bond bax is yidhi albaabkii ayuu mar kale xiray saafan. bond markuu orod is yidhi oo uu ful is yidhi albaabka waxaa ku dhuftay xabad saafan ayaa sun khatar ah ku duray bond, halka uu bond ka takhallusay saafan albaabkiina dib u furay. nasiib darro sunta lagu duray awgeed bond waa uu awoodi waayey inuu ka baxo jasiiradda. q ayaa bond khadka kula kulansiiyey Madeline isagoo daqiiqadihii ugu dambeeyey noloshiisa la qaatay, waxayna u sheegtay in Matt tahay gabadhiisa. isagoo taagan ayay gantaaladii ku habsadeen jasiiraddii, halkii ayuuna ku dhintay. madaxdii MI6 ayaa isu yimid iyagoo uga tacsiiyeen geerida bond, halka Madeline oo gabadheedii gaari ku wada ay uga sheekeen qisada aabaheed iyadoo leh James Bond waxa uu ahaa. filinkiina halka ayuu ku dhammaaday. fadlan si aad ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee aan soo dhigi doono, like saar noona subscribe gare, waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.